Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh adduunka meel kasta ka joogtiin kusoo dhawaada cunto macaan channel fadlan waxaan kaa codsanayaa channelka hadaa soo booqata inaad subscribe ii sartid muuqaalkan hadduu kusoo gaaray waxaan kaa codsanayaa inaad like ii sartid asxaabtaadii familigaada la sheegarisid aad iyo aad ayaa u madsan tahay asxaabtayda qaaliga maanta maxaan sameysanaynaa quraacda ciida oo sabaayad iyo hilib dhadhan leh insha allah la socod wanaagsan soo dhawaada bismillaah marka hore maxaan rabaa hilibka inaan kariyo digsigan pressure cooker maxaan kusoo ridayaa 1 kiilo wax yar dhiman oo hilib ari ah kadib waxaan ku darayaa wax yar kabsar caleen kadib waxaan ku darayaa 1 qaado yar oo toon ah iyo 1 qaado yar oo sanjabiil ah kadib waxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo filfil ah kadib waxaan ku darayaa 2 xabo basal aan soo jarjaray kadib biyo ayaan ku shubayaa dabka ayaan saarayaa maxaan sugayaa hilib ilaa uu kasoo bislaado ama ilaa 25 daqiiqo digsi caadi hadaa isticmaalaysidna intaa ka badan ayuu ku bislaani asxaabtayda qaaliga hilibka markana diyaar waayo wuu soo bislaaday kadib markan maraq ayaan ka miirayaa markana maxaan rabaa hilibka inaan shiilo digsi ayaan dabka soo saartay kadib maxaan ku shubayaa xoogoo saliid ah saliidda markay kululaato kadib maxaan kusoo ridayaa hilibka kadib ugu horeyn maxaan ku darayaa qaadada yar afkeeda hore oo huruud ah kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo xawaaji dhudhuub ah iyo qaadada yar afkeeda hore oo filfil ah kadib markan maxaan ku darayaa wax yar soy sauce kadib maxaan ku darayaa kabsar caleen iyo toon aan isku soo tume kadib intan ayaa marka hore hilibka ku shiilaya asxaabtayda qaaliga markana maxaan ku darayaa nus bakeeri oo maraqa hilibkan ka miire ah kadib markan maxaan ku darayaa basal iyo barbarooni aan si yar yar usoo jarjaray kadib maxaan ku darayaa 2 qaado oo plain yogurt ah ama caano garoor asxaabtayda qaaliga intan ayaa marka hore si fiican isku darayaa kadib maxaan ku darayaa wax yar cusbo ah kadib waan sii shiilayaa ilaa iyo 5 daqiiqo ugu dambeyntii hilibka markana diyaar waay si fiican ayuu u shilmee waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen asxaabay markana maxaan rabaa inaan sameeyo sabaayad baaquli ayaan soo qaatay waxaan kusoo shubay 3 bakeeri oo bur ah kadib markan maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo cusbo ah iyo 1 qaado oo sokor ah kadib maxaan ku darayaa 3 qaado oo subag ah intan ayaa marka hore si fiican isku darayaa kadib maxaan rabaa inaan ku xasho biyo qandac ah asxaabtayda qaaliga burka ayaa markana si fiican u xashayaa shay kasta burka sameysan maxaa la rabaa inaad waqti siisid aad si fiican u xashtid markaasuu ku hagaagaya insha allah markaa xasho aan si fiican u xasho ayaan isku soo laabanaynaa burka markana diyaar waay si fiican ayaan u xashay kadib wax yar saliid ayaan kor ka marinayaa baaquliga ayaan ku ridayaa waan daboolayaa ilaa iyo 20 daqiiqo ayaan meel iska dhigayaa 20 daqiiqo kadib ayaan usoo laabtay kadib marka hore waan jarjarayaa markaan jarjaro kadib waan kuskuusayaa
asxaabtayda qaaliga markaan kuskuuso kadib inta kale baaquliga ayaan ku ridayaa, maro ayaan ku daboolayaa. kadib hal xabo kuus ayaan soo qaadanayaa, waan fidinayaa. markaan fidiyo kadib wax yar saliid ayaan marinayaa, kadib bur yar ayaan kor kaga shubayaa, kadib waan daduubayaa. insha Allah dhamaantood markaan bogo aan daduubo ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabtayda qaaliga dhamaantood sidan ayaan usoo diyaariyay. kadib hal xabo ayaan soo qaadanayaa, inta kale maro ayaan ku daboolayaa, kadib waan fidinayaa. markaan fidiyo kadib dabkana birta ayaa ii saaran, hore ayaan ka dubayaa. asxaabtayda qaaliga markana sabaayad ayaan dubanaynaa. xabada koowaad ayaan birta soo saaray. sabaayadana maxaa fiican dab dhexaad inaad isticmaashid. insha Allah dhamaantood markaan bogo aan dubo ayaan isku soo laabaneynaa. ugu dambeyntii quraacdeena sabaayadii hilibka sidan qurux badan ay kusoo baxeen. waa sabaayad aad u fudud, aad u jilcan, aad u macaan badan iyo hilib dhadhan leh. maxaan rajeynayaa inay ka hesheen. waa quraac ku anfici doono maalinka ciida. ciidan ciideedii Allah nabadii caafimaad nagu gaarsiiyo. intaysanin Allah siiyo, intaysatan Allah u barakeeyo. fadlan maxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu kusoo gaaray inaa like ii sartid, asxaabtaadii familigaada la sheegarisid. channelkan haddaad soo booqatay maxaan kaa codsanayaa inaa subscribe ii sartid. asxaabtaydan jeclahay maxaan idin leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan. muuqaalkan muuqaal lamid intaan kulmi doono sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.